Macallin Yawuz waa mid ka mid ah macallimiinta khibradda badan u leh hidaha iyo dhaqanka dalka Turkiga. Waxa uu shaqeeyaa wasaaradda waxbarashada. Waa xaasle leh 2 carruur ah, degan magaalada, haysta nolol aad u fiican. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu soo aaday xafiiskiisii shaqada. Markii uu yimid waxa loo sheegay in dawladdu u magacaawday in uu noqdo macallin loo diro tuulo aad u fog si uu dadka halkaas ku nool u baro qorista iyo akhrista. Macallin Yawuz waxa kaliya ee hor yaalla hadda waa inuu aqbalaa amarka dawladdu soo saartay. Waayo dawladdu waxay isku dayeysay in ay dalka ka cirib tirto jahliga iyo in la waayo qof aan waxna akhrin waxna qorin. Macallinka kuma qanacsana tuulada gaarka ah isaga loo magacaabay. Waxa uu rajaynayaa ugu yaraan in uu helo tuulo uu ka imaan karo isbuuc dhamaadka. Laakiin ma oga in ay tuulada ku sugayso arrin cajiib ah oo san ku sii xisaabtamaynin. Waxa tuuladaasi ku nool oo sugaya nin uu bedeli doono mustaqbalkiisa idil. Waa curyaankii la ciilay ee Aziz ahaa. inkastoo xaaskiisu diiday in uu halkaasi aado, haddana waxa uu ku adkaystay in amarka dawladda uu fuliyo, waajibka loo dirayna uu soo dhammaysto muddo sanad ah. ku soo dhawaada qisadii curyaankii la ciilay ee Aziz qaybteedii 2 oo aad kala socotaan kanaalka Cilmi Kororsi. haddii uu kugu cusub yahay fadlan saar subscribe siina gaarsii asxaabtaada kale. mahadsanidin. goor barqa ah, dadka tuuladana ay ku jiraan nolol maalmeedkooda caadiga ahaa, ayaa waxaa tuuladii mar qura soo galay qof ka duwan dadka tuulada oo idil. horay aan loo arkin, labiskiisu iyo dhaqankiisuna yahay mid gaar ah. qofka cusub ee tuuladii yimaada ama martida ah waxaa si toosa loo geeyaa guriga guddoomiyaha. macallinka hadda waxaa loo sii wadaa gurigii Jaawid. inta uu sii socday waddada waxa uu arkay nin curyaan ah oo carruurta ay garaacayaan. dadka meesha jooga iyo inta la socotana aysan u dhimrayn, u naxayn, cid ahaysana aysan jirin. war hala daaya ninkan. wuu fiiriyey, dadku kama muuqato wax dareen ah, waxa ay la tahay wax iska caadi ah. wuu iska gudbay, waxa uuna tagay gurigii Jaawid. markii la geeyay macallinkii gurigii Jaawid ayuu gurigii isagana yimid. inkastoo uusan hadli karin, haddana ilinka ayuu isku qariyay. waxa uu isha la raacayaa macallinkan, waxa uuna rabaa inuu ogaado waxa uu yahay. iska daba wareeg fara badan iyo codsiyo fara badan oo loo diray dawladdu in ay soo ogolaato in iskuul loo dhiso tuulada laguma guulaysan. waxa ugu dambayntii macallinka uu soo jeediyey inuu isaga jeebkiisa ka keeno waxyaabaha muhiimka ah ee aan looga maarmin in iskuulka lagu dhiso, halka qoryaha iyo dhista kalena dadka tuulada ay bannaanka ka keenaan si iskood ahna ay u dhisaan iskuulka. waxaa subaxdii dambe lagu guulaystay in la daahfuro iskuulkii. waxaa la keenay carruurtii oo gabdho iyo wiilal isugu jira, waxaana bilaabatay waxbarashadii. tuulada maanta wixii ka dambeeya waxa ay leedahay iskuul si rasmi ah wax loogu barto. Aziz inkastoo uu yahay curyaan, haddana waxa soo jiitay nidaamkan waxbarasho ee cusub ee laga hirgeliyay tuulada. waxa uu soo raacay carruurta. wuxuu yimid iskuulka inkastoo hore u galin, wuxuu istaagay ilinka. macallinku wuxuu isku dayay in uu la hadlo, weydiiyo in uu waxbarasho u yimid in kale. laakiin Aziz nasiib darro ma ahan in hadla. maadaama uu subax waliba taagan yahay ilinka iskuulka ninkii Aziz ahaa, macallinku waxa uu garabka soo qabtay maalinkii dambe Aziz. waxa uuna fariisiyey kursiga ugu dambeeya ee kalaaska. waxa uuna u sheegay inuu maanta wixii ka dambeeya yahay arday iskuulka dhigta, loogana baahan yahay inuu subaxdii soo kallaho oo iskuulka yimaado. haddii uu gooyana lagula xisaabtami doono oo la ciqaabi doono. carruurtu waxa ay bilaabeen in ay ku qoslaan kuna maadaystaan Aziz. laakiin arrintaasi waxaa aad uga xanaaqay macallinkii. waxa uuna ardaydii ku amray in maanta wixii ka dambeeya iskuulka gudihiisa iyo dibaddiisaba aan wax dhibaataha loo geysan karin Aziz. ciddii uu ku arkay iyadoo dhibaataynaysa Azizna uu ciqaabi doono. maalinkaas wixii ka dambeeyey, Aziz waxa uu helay xornimo buuxda oo uu tuulada ku dhex maro. loolanka adag ee hor yaalla macallinka waxa ay tahay
sidii uu wax ku bari lahaa ninkan curyaanka ah ee aan awoodin xataa inuu qalinka qabto. macallinka markii uu ogaaday in Casiis aysan ku filnayn waqtiga caadiga ah ee loogu talagalay ardaydan, waxa uu u sameeyey xisooyin gaar ah. waxa uu u kaxayn jiray gurigiisa uu la joogi jiray ilaa habeenkii. waxa uu la caawin jiray sidii uu wax u qori lahaa. waxa uu la qaban jiray qalinka. mararka qaarkood markii Casiis inta loo daayay qalinka uu xaraf qaldan qoro, macallinka intuu aad u sacbay ayuu dhihi jiray, Casiisoo waad guulaysatay. Casiisna inta uu farxo niyada aad ugu degto ayuu sii kaxayn jiray hawsha halkaa ka sii waday. dadka tuulada degan oo dhan waxay u arkaan waxbarashadan uu bilaabay Casiis in ay tahay meel uu ku madadaalo, laakiin uusan marna awoodi doonin inuu wax barto. waayo iyagu waxna ma akhriyaan, waxna ma qoraan. waxa ayna aaminsan yihiin wax iyaga oo caafimaad qabay awoodi waayeen, isaga oo xanuunsan inuusan awoodin. maalinkii dambe waxaa si lama filaana tuuladii u yimid ciidamada dawladda oo raadinaya wiilka labaad ee u dhalay guddoomiye Jaawid ee ka yar Casiis. waxay u sheegeen in uu soo dilay ruux, waajibna ay tahay in la horgeeyo cadaaladda. laakiin nasiib darro wiilkaasi ma uusan joogin, waa la waayey. Jaawid oo arrintaasi aad uga naxay, war horena aan ka haynin, ayaa waxa uu isku dayay inuu wiilkiisa la kulmo si uu u xaqiijiyo arrintaasi. laakiin wiilka tuulada uu ka baxsaday. ciidamada dawladdu waxay u sheegeen in wiilkiisa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im, laakiin haddii inta uu soo qabta cadaaladda uu hor keeno iyadoo wax ciidan aysan la soconin, laga yareyn doono xukunkaasi oo laga yaabo in sannado yar lagu xukumo kadibna la soo dayi doono. macallinka wuxuu aad uga shaqeeyey in uu ku qanciyo guddoomiye Jaawid in wiilkiisa uu cadaaladda horgeeyo si ugu yaraan looga badbaadiyo xabsi daa'im. waayo ciidamada ha dhawaato ama ha dheeraatee maalin bay qaban doonaan, dib dambana uma arki doono. Jaawid oo arrintii ku qancay ayaa ku yidhi macallinkii, adigana i raac. way isa soo raaceen. wiilkii ayaa la keenay cadaaladdii. maxkamaddu waxa ay ku xukuntay wiilkii muddo 4 sannadood oo keliya ah. waalidkiina waxaa loo sheegay in amnigiisa iyo caafimaadkiisa la ilaalin doono, soona booqan kara xillaa la xilliga uu doono. Jaawid iyo macallinkii markii ay soo baxeen ayay bannaanku waxa ay ku arkeen wiil dhalinyaro ah oo sita bistoolad damacsanna inuu nin oday ah oo sii jeeda dilo. marka uu la soo baxay bistoolada ayaa Jaawid oo ul sitay waxa uu ku dhuftay wiilkii, waxa uuna badbaadiyay ninkii odaga ahaa. ninkii odaga ah ee la badbaadiyay ayaa Jaawid waxa uu ku yidhi, niyow naftayda ayaa badbaadisay, ilaahay khayr ha ku siiyo, waxaadna igu leedahay abaal aan la gudi karin. laakiin waxaa ii joogta gabare, adigoo wiil ma kuu jooga aan kuugu daro. Jaawid oo jawaabta ku adag tahay ayaa wuxuu ku yidhi, wiil waa ii joogaa laakiin waa curyaan, gabar laguma dari kara kaas. odaygii waxa uu ku yidhi, haddii uu curyaan yahay, caqliga curyaanka ma aha. gabadha waan ku siiyey, tuuladaas ayaan degganahay, soo doono. Casiis sidaa ayuu ku helay gabar nasiibkiisa uu u keenay. waa loo doonay, waxaana loo keenay tuuladii. laakiin gabadha la keenay waxay ahayd gabadha ugu quruxda badan la tuulada. intii hore u guursatay oo idil kuma aysan soo aadin gabadhan kale. waxa ay noqotay qofta keliya ee lagu sheekaysto tuulada. sida dhaqanka tuulada yahayba, gabadha aroosadda waxaa la dhex istaajiyaa qolka dhexdiisa iyadoo wejigu u daboolan yahay. wiilkana waxaa soo kaxeeya ragga kale ee la filka ah. marka la keeno ilinka albaabka ayaa waxaa lagu yidhaahdaa, daaqadda waxaa laguu saaray qooley nool. marka aad gudaha gasho, soo qaba qooleyda unala soo dhowow gabadha, markaa waxaa qoorta ka jartaa qooleyda. taas waxa ay muujinaysaa in aad tahay mas-uulka guriga looga dambeeyo. gabadhanna maalinkaa wixii ka dambeeya waxay garwaaqsanaysaa inay arrinta adig kaaga dambayso. Casiis waa curyaan miskiin ah, mana awoodo arrintaa. markii gudaha la soo geliyey ee uu gudaha soo galay, waxa uu soo qabtay qooleydii, laakiin farxad darteed uu iska daayay. markii uu damcay gabadha inuu wejiga ka furana, wuu dhacayba. gabadhii waa ay qaylaysay markii la soo galay ee Casiis la soo toosiyey laga tagayna, way iska ooysay, aad ayay u ooysay. waxaa loo guuriyaa nin curyaan ah, dhareerayo, wax uu isku tari kara aysan jirin, gabar qurux badan oo mustaqbal fiican sugaysay oo maanta ninkaa ku soo aaday. laakiin Casiis hooyadii ayaa u timid oo ku tiri,
hooyo mar waa ninkaaga mar waa aabbaha mar waa wiilkaaga hooyo dhaqaaley haddii aan anigu maanta dhinto adaan kaaga tegay ogow gabadhu way iska aqbashay waxayna go'aansatay inay ducada qaadato oo ay ninkeeda iskala joogto laakiin intaa waxaa sii dheer dadkii tuulada marka ay soo baxdo waxaa leeyahay bal arka tii ninka dhereeraayay qabay bal tii arag curyaanku qabay way ciishootay way rafaaday waxaana ku adkaatay noloshii tuulada casiis waxa uu la wadaagaya xanuunka iyo murugada xaaskiisa waxa uuna ogaaday in dhibaatadan loo geysanaya xaaskiisa uu isaga sabab u yahay curyaannimada darteed ay keentay intan dhib ah iyo aflagaadaha ee gabadha loo geysanayo waxa uu dareemay in uu yahay curyaan aan waxba tari karin macallinka uu adkaysan waayey noloshan adag ee uu ku nool yahay casiis iyo dhibaatadan ay la kulmaysa xaaskiisa ayaa waxa uu u qoray casiis warqad waxa uuna tala ku siiyey in qorshahan soo socda uu sameeyo si uu uga badbaado dhibaatada haysata casiis waxa uu ku dhaqaaqay qorshihii waxaana tuuladii laga waayay hal maalin isaga iyo xaaskiisii macallinkii dadkii tuulada joogay oo dhan waxa ay raadeen casiis inkastoo macallinka uu og yahay hadafka saxda ah ee dadkaasi ay u baxeen haddana waxa uu muujinaya inuusan shaqo ku lahayn isaga markii laga quustay casiis waxaa dib loogu soo laabtay gurigiisii waxaa dadkii oo dhan isugu yimaadeen warqaddan si loo ogaado waxa ku qoran macallinku waxa uu bilaabay inuu akhriyo warqaddii warqadda waxaa ku qornaa fadlan la soco qaybta saddexaad ee sheekadan curyaankii la ciilay casiis oo aan la ogeyn jaan iyo cirib meesha u dhigay haddii aad ka heshay saar subscribe siina gaarsii asxaabtaada kale si ay uga faa'iidaystaan mahadsanidin